maanta oo khamiis ah qaybta su'aalaha ayaynu si toos ah markaa u geli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Su'aasha ugu horeysa fadiilada Sheekh Saa'ilkani waxa uu leeyahay marka la ducaysto in qofku gacmaha dhunkada ama madaxa la mariyo oo qofku madaxa ku masaxo shareecadu maxay ka qabtaa? Su'aasha labaad waxa uu leeyahay Sheekh isagoo qofku salaad ku jira haddii moobilka oo dhulka yaala uu soo dhaco oo uu ku qayliyo ma qaadan karaa oo ma aamusiin karaa intuu foorarsado ama mararka qaarkood sida dhacdo qofkii markaa qofkii soo garaacayay fariimahan degdega ma ugu jawaabi karaa ma oran karaa mashquul baan hayo wixii la mid ah. Su'aasha saddexaad waxa uu leeyahay saa'ilkan Sheekh xoolaha haddii la quudiyo oo aanay foofin ee guriga dhexdiisa wax lagu siiyo wax saka ama lagu leeyahay. Su'aasha ku xigta waxa uu leeyahay Sheekh shaqaalaha ila jooga ee meheradayda ka shaqeeya sakaatul fidriga miyaan ka bixin karaa mise qof waliba naftiisa isaga ayaa ka mas'uula? qaybta ugu horeysa su'aasha ugu dambaysa waxa uu leeyahay Sheekh haddii aan sakaatul fidrigii soo amaahdo oo aan dukaan ka soo amaahdo raashin oo aan waqtiga bisha aan siinayo uun aan u raaciyo ma iga ansaxaysa ayuu leeyahay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سؤال شهراء الشيء يسقفكم مركب ودعيسته إنه كعمها ركضا وجهي الله تنكم مصحة تسوقن وحويين كعمها كرلا قادم مركب الدعيسنية waxaa soo raaca marka khudbadda khatiibku akhriyayo waxa fiican in aamiin la yidhaahdo mooyaane inaan gacmaha kor loo qaadin maadaamuu nebigu khatiibka u diiday dadka ma'muumiintiina waa la mid bay leeyihin aamiin waa la odhan karaa laakiin gacmuhu baan kor loo qaadayn taasi waa tii gacmaha kor u qaadistooda amaa in wejiga lagu masaxo marka la ducaysto kadib gacmaha weliba aan salaada lagu jirin axaadiid daciifa ku soo aroortay culimada qaarkood waxay yidhaahdaan may gaadhin heerkii lagu daliishanayo sidaa daraaddeed ficilka lama samaynayo qayb ka midina waxay leeyihin axaadiidtaasi waxay gaadheen heerka xasanka loo yaqaano oo waa la daliishan karaa waa masale khilaafiya markuu ducaysto kadib inuu qofku wejiga ku masaxo almuhim qofka ku masaxaya looma diidi karo mar haddii khilaafkaasi uu jiro culimada qaarkoodna ay leeyihiin axaadiidtaasi heer xasan bay gaadheen amaa in laabta lagu masaxay iyo in gacmaha la dhunkado iyadu wax jira maaha gacmaha in la dhunkado iyo in laabta lagu masaxo wax jira maaha su-aasha ah moobaylka markuu qayliyo dhulka ma ka qaadi karaa ama message ma diri karaa macnaheedu waxa weeye qofkaasi inaanu salaad u jeedin moobayl u jeedo moobaylkii weli ka shaqaynaya ninkaas arrinkii ilaahay kama shaqaynayo sideedabana salaada waxyaabaha ay ku burta waxaa ka mid ah ficil iyo qowl labadaba marka haddaad keento ficil siyaado ah waaba sida rukni oo kale rukuuc baad keentay siyaada ama sujuud siyaada way kaa buraysa marka imika dee nin foorarsaday rukuucba wuu sii dhaafay way ka buraysaa qofkaa salaadii waa inuu soo celiyaa ziyaada fi salaa buu keenay waquumuu lilaahi qaanitiin ilaahay wuxuu yihi yaa markuu la hadlaya dadka muuminiinta xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusdaa waquumuu lilaahi qaanitiin qofkoo aamusan oo xasiloon ayay ahayd adaabtu waxa weeye qofku markuu soo galo masjidka inuu moobaylka iska aamusiiyo oo arrinta aada u xusuusnaado haddii markaa uu baktiinayana cagta iyo waxbuu ku baktiin doonaayo uu ku joogsan doonaa xoolaha waa laba qaybood oo saa'imatun wa macluufa aw macluufa imaa saa'ima wa imaa macluufa neef la foofiyey iyo neef la calfiyey neefka cunno iyo calaf la siiyo sanadka intiisa badan seke ma leh neefku hadduu foofo sanadka intiisa badan sekuu leeyahay waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu sekada ka warramaya wuxuu uhi wa fii saa'imati libil geela tafoofta
marka soomku macnaha foofkuu shardi ka dhigayaa geedaha kaynta ee hawdka inuu soo daaqa neefkii laakiin kharashka badan ku baxaya 8 bilood 7 bilood la calfinayay saka ma leh shardigii baa laga waayay shuruudii sakada mid ka mid ah shaqaalaha adiga kuu shaqaynaya mushaharka siinayso hadday iska bixin karaan sakaat fidrigii iyagaa lagu leeyay haddii aanay iska bixin karayna waxbaa laga siin karayaa almuhim sakaat fidrigu saynu dariskii kan ka horeeyay soo sheegnay dadkaad masruufaysaabaa sakaat fidrigooda lagugu leeyay dadka kula jooga iyo kuwa kuu shaqeeya laguguma lahaa qofku laakiin haddii aad ku idhaahda iga bixi waad ka bixin kartaa wakiil baad ka noqon kartaa haddaad adigu jecesha inaad ka bixisana ma kaa bixiyaabaad odhan haabuu ku odhan ila waa cibaade niyo iyo wakaalad bay u baahanta waa la iska bixin karaa marka sakaat fidriga qofka bixinaya waa qofka habeenka iyo maalinta ciidda waxuu ku bixiyo haddii laakiin aanu haynin soo amaahan maayo oo laguma kalifayo inuu soo amaahdo waxaa se xusid mudan reerkii dukaanka ka qaadanayay raashinka ee soo dhigtay guriga ee laga sugayay dee intee daabiilka u dallacayay dukaanka sakaat fidriga waxa ay cunayaan unbuu la socdaa mar hadduu raashinkii gurigii yaallo dee kanunbaa laga bixinayaa ee daynta dukaanka waxba la eegi maayo waayo masruufkii baa laga qaadanaya halkan waa tartiib adigiyo dukaanka idin dhexaysa qofkii xoolii wuu hayaa laakiin waanay u soo go-in oo bisha dhammaadkeedu kaashkii qaadanaya marka haddii raashinkii yaallo waa laga bixinayaa haa wallahu aclam jazaaka allahu khayran fadiilata sheekh qeybta ku xigta su-aalaha waxa uu leeyahay waxaan haystaa meherad dharka lagu iibiyo markaa sakaatulfidrigii dhar ahaan ma u bixin karayaa mise waa in cunto lagu bixiyo buu leeyahay su-aasha ku xigta waxa uu leeyahay sheekh dheecaanka ka yimaada dhaawac ama nabar qofka dushiisa ku yaala ma nijaasba haddii dharka hoose qofku uu xidhan yahay uu gaadho miyuu ku tukanayaa mise waa inuu iska bixiyo ayuu leeyahay su-aasha ku xigta waxa uu leeyahay sheekh haddii aan soo gaadho salaaddii ciidda oo lagu jiro takbiirtii oo ay dhaafto ilaa 4 takbiirood ma halkaasuu baan kala qabsanayaa mise takbiirihii ciidda ee ragcad kasta sidoodii ayaan u soo celinayaa su-aasha ku xigta waxa uu leeyahay sheekh waxaa dhacdaa in dadka badankoodu aanay dhegaysan khudbadda salaada ciidda oo iskaga tagaan marka khudbadda ciidda xukunkeedu maxay tahay in se la dhegaysto maxaa ku soo arooray su-aasha ku xigta waxa uu leeyahay sheekh haddii uu yimaado qofku iyadoo salaaddii ciidda laga baxay oo imaamku khudbaddii ciidda uu wado miyuu fadhiisanayaa mise salaaddii ayuu tukanayaa sidee buuse u tukanayaa ma takbiirihii oo dhan buu akhriyayaa mise 2 ragcadood oo caadiya ayuu tukanayaa su-aasha ugu dambaysa qeybtan waxa uu leeyahay sheekh qofka haddii ay dhaafto salaaddii ciiddu ajarkii ma leeyahay si xukunkiisu muxuu noqonayaa isagoo soo dadaalay oo isla aad ka gaadhid haddii ay dhaaftay buu leeyahay xukunkiisu muxuu noqonayaa alxamdu lilah sakaatulfitr sidaynu hore usoo xusnay raajixay waxa weeye in lagu bixiyo raashin nebiguna saasuu aha calayhi salaatu wassalaam marka in dhar lagu bixiyey in lacag lagu bixiyo labadaba aynu ka daynaynaa daliil ma leh waa tii axmed ibnu xambal iyo nin su-aasha weydiinaya aada uga doodeen ee uu lahaa sunnihii nebigaan kuu sheegaya adiguna cumar ibnu cabdilcasiis baad ii sheegaysa marka sunnaha nebiga qaado almuhim dharna waa yaalay lacagina way taalleen nebigu dhuuni unbuu ku bixin jiray raashin marka raashinkaasaa lagu bixinayaa waxaan la idhaahda sadiidka ama mililka ama dheecaanka qofka ka imanaya waa dhiigga beddelkiisii uun dhiiggii unbaa marka dambe dheecaan noqonaya malax noqonaya siduu dhiiggu nijaasu ahaabuu isaguna nijaasu yahay waa xukunkii dhiiggu qaadanaya marka qofku waa inuu jidhkiisa iyo maradiisa ka basriyaa iyo meesha uu ku tukanayo qofka ciidda lagala horu maray ee ragcad soo gaadhay ragcadda labaad markuu u kaco allahu akbaraheedii buu la imanayaa 5 allahu akbarood buu la imanayaa kadibna tii hore wuu tukadee tan dambe waa tiisii dambe u tixgelinayaa tiisaa horena tiisii horey noqonaysa markaa tan dambe wuxuu la imanayaa 5 kadibna saasuu ku dhammaystirayaa
qofka sidiisaba iyada oo la tukaday yimaado salaadii ciidda wuu tukanayaa tiisi salaada ciidda waxa lagu tukadaa jamacna waa lagu tukadaa fardanna waa loo tukan karaa si gaara iyo si jamaca labada waa lagu tukan karaa qofkaan jamacba helin baadihiisuu ku tukanayaa xaafadiisana wuu ku tukan karaa waa cibaado masnuuna oo mashruuca fi lfardi waljamaaca si gaarihi iyo si jamaca labada waa lagu tukan karayaa khudbadda ciidda nebigu calayhi salaatu wasalaam ikhtiyaar buu dadka siiyey qofkii doonaana inuu dhegaysan karo kii doonaana iska tegi karo marka salaada la dhammeeyo khudbadda ikhtiyaarkaasay dadku u leeyihin inay dhegaystaan ay ka faa'iidaystaanna way iska fiicanta khatiibkuna inaanu ku dheeraynine fariimo kooban oo dadka u xambaarinaya uu kusoo ururiyaaba habboon wallahu aclam jazaaka allahu khayran qaybtan su-aalaha ugu dambeysa saa-iilkani waxa uu leeyahay sheekh dumarka qaarkood ayaa markay salaada ciidda imanayaan waxay marsadaan cadar ama bukhuur ama waxyaabaha la midka ah iyaga oo ku andacoonaya in maalintii farxadda ay tahay marka diintu maxay ka qabtaa mase loo bannayn karaa su-aasha ku xigta waxa uu leeyahay ayaamaha ciidda waxa dhacday in dumarka iyo ragga isku qaraabada iyo ehelka ah ay isgacan qaadaan iyagoo sabab ka dhiganaya waa maalin ciideed oo waa maalin farxadeed iyo waxyaabaha la midka ah marka miyay bannaan tahay sidoo kale su-aal kaleo ciidda la xidhiidha waxa uu leeyahay dhalinyarada qaarkood hablo iyo inamo kale ajnabiya ayaa mararka qaarkood safarra ugu baxa meelaha loo dalxiis tago ee lasoo daawado sidaa awgeed diintu maxay ka qabtaa ayuu leeyahay su-aasha ugu dambeysa saa-iilkani waxa uu leeyahay sheekh aabbahay ayaa dhintay waxaanaan dhegaystay maalintii dhaweytood aada ugu dheeraatay arrinka dhaxalka sidaa awgeed waxa uu ka tegay buu leeyahy 2 guri iyo 2 beerood 2 reerna wuu lahaa qoys waliba guri buu ku jiraa marka waxay ku heshiiyeen qoys waliba in gurigooda ay iskaga jiraan 2 beeroodna la iibiyo markaasuun la dhaxlo marka midiba aqalka uu ku jiro hadduu sidaa ku qaato ma ansaxaysa ayuu leeyahay sidoo kalena 2 qoys mid ka mid ah haddii mararka qaarkood uu maalgelin ku sameeyo mid ka mid a beeraha oo wax fiican uga soo baxaan ma keligood ayaa iska qaadanaya mise waa la dhaxlayaa fadiilata sheekh waxaa jira dad badan oo isugu jira waayeel dumar dhalinyaro arday iyo in kale oo masaajidka inagula sugan ama baraha facebooka iyo meelaha inagala soo xidhiidha oo 12 kulan bay naga soo dalbanayay runtii loo duceeyo oo aynu gadaal u dhiganay kuwaana waxay codsanayaan in sheekhu u duceeyo falyatafadal بسم الله الرحمن الرحيم شيئا لا يراهdo isqurxinta waa saxo ciida waa la isqurxinayaa waa la isudgoreeynaya wax wanaagsan baa la xidhanayaa laakiin marka dumarka la eego iyo bixitaanka dibadda ula baxayaan sharcigu waa u diiday nabigu calayhi salaatu wasalaam inay gabadhi qurux dibadda ula baxdo iyadoo isdhalaalinaysa oo jidhkeedii udgoonaysay oo bukuur samaysay oo dhar bilicla la baxaysa sharcigu uma banaynayo dumarka xijaabkoodan ay gashayin baa la yidhi allaa yakuuna ziinatan fii nafsi dushiisa waa inaanu dhalaal iyo iftiin ka muuqanaynin iyadana hadalkeeda daa marka qadiyadaasi waa xasaasi weeye gurigooday la joogayaan way iska asturnaanaysaa markay dabadda u baxayso laakiin dahabkan la gashanaya iyo xariirtan iyo cusburkan iyo iclaankan intay meel walba isbariyaan ay la baxayaan waa nooc edab darro ah weeye nooc ziinada noocaasi zinaanay noqon kartaa qofkii inuu jidhkiisii dadka ay gabadhi usoo bandhigto waa nooc sina ah weeye marka arrinta aada looga feejignaado arrinta labaadee ah inay rag iyo dumarku isgacan qaadaan ama ay isla dalxiisaan ay cidlooyinka tagaan waxyaabahan bannaanayn weeye sharciguna waa ka digayaa caaisha waxay leedahay nebi maxamed weligii gacantiisu may taaban ruux ajnabiya gacanteed xataa markuu dadka islaamka heshiiskii islaamka la gelayay ragga wuu gacan qaadi jiray laakiin dumarka muu gacan qaadi jiray marka waxuna muhiimahun waa la farxaya laakiin laguma farxa xaaraanta ee xalaasha lagu farxaa alfarxatu fi xuduudi alxalaal laa fi lxaraam xalaashuun baynu ku koobannay markaynu farxaynee in la isqaawiyo in rag iyo dumarku isla dalxiisaan in ajaanibtu isku dhex marmaan ay isku ikhtilaadaan in qamaarka la ciyaaro in la tunto baadhiyo iyo waxii gaalada la dhigo waxaasoo dhan waxay sheegayaan
ajrigii aad heli lahayd ciidda iyo kii rabadaantii baad duminaysa kii baad duminaysaa anta khaldaan marka waa inaad xaqa usoo noqotaa su-aasha kale dhaxalkii bay dadku iska qaybsadeen way qaybsan karaan dadku dhaxalka si aan sidii sharciga waafaqsan aan ahayn bay u qaybsan karaan haddii laakiin ay wada qaangaadh yihiin oo ay wada miyir qabaan oo ay raalli ku wada yihiin shuruudahaasaa u xidhan wax ciyaali kuma jiro wax waalina kuma jiro wax la qasbayna kuma jiro waxay lahaayeen guryo iyo meherade iyo waxbay iska lahaayeen dhul iyo wax kadibna waxay idhahdeen waxba yaynaan wadaadana u tegin qaybinine adiguna intaa qaado adna intaa qaado adna intaa oo kii daciifkaabaa loo badiyey oo inantii baa loo badiyey oo kii faqiirkaabaa loo badiyey saa raalli ma ku kala nahay haa macnaheedu waxa weeye qofkii wax ka tegeen wuu hibeeyey dadka qaarkood baa markaan qaybtii sharciga ahayd la saarin dadka qaarkood baa wax dhaafayaane moogti oo wax ka maqan yihiin wixii ka maqnaa buu qofkii cafiyey oo way isu cafiyeen ilaahayna wuxuu uhi wasulxu khayrun suluxa ayaa ka khayr badan qofku wixii uu cadaaladiisa ku qaadan lahaa laakiin midhka yaallaa waxa weeyaan mararka qaarkood baa intoo sidaa loo sawasaweeyo oo sida noocaasa loo qaybiyo dadka sharci looga dhigaa maatida ah oo kuwa u dhugdhuglaysan ama ugu xoog roon baa idhaahda wixii waanu qaybinay si adigu intaasaad yeelatay markaa miskiinaddii waxay moodaysaa intan inuu sharcigu siiyey waana laga badsaday marka taa weeye tafoojarigaee la diidaya qaladka ah marka way kala duwan yihiin in la isu saamaxo iyo in la isu sharci gareeyo marka haddii dadkii ay shuruudaha aan la waayo dhaxalkii rasmigaah baa la marinaya marka haddii aad kala qaybsateen oo qoloba guri qaadatay bahiba guri kii beerta maalgelinaya wuxuu geliyey loo ogolyahay wuxuu ka cuno loo ogolyahay dad isu cafiyayoon isqabsanaynin aatiin haa haddii muran jiro waa in qaybtii shareecada la saaraa qofkii wax ka galena loo xisaabiyaa qofkii wax sii cunayna la xisaabiyaa tartiibta waa caynkaa markaynu soo ururino waxaynu ku soo ururinaynaa ducada dembigeenna allaha dhaafo kii waalidkeenna allaha dhaafo dadkaa ducada inaga soo dalbanaya ee dabadiiyo gudaba jooga wixii muraadaha leeyihiina khayra allaha siiyo muraadkoodaan macsi ahayn allaha siiyo qof waliba muraad buu leeyahy diin iyo dunyo isagoon macsi ahayn allaha siiyo inta bugtana allaha caafiyo inta bugta allaha caafiyo inta caafimaad qabtana allaha u kordhiyo qof waliba meeshuu ka cabanayo cidhiidhiga allaha ka saaro muslimkana cisi iyo sharaf allaha siiyo quluubtoodana allaha isu jeediyo khilaafkana allaha ka dhex saaro cadowgoodana allaha uga heliyo cadowgooda allaha uga heliyo kuwa dhiban ee la dulmiyayo lagu xadgudbaya nasri allaha siiyo waxaynu haynana allah inoo barakeeyo dad iyo dunyo iyo diin iyo dalba allah inoo barakeeyo islaamkana qalbigeenna allaha u jeediyo kuwii qur-aanka ku dhaqmee hogaamiye ku camal fala allah inaga dhigo sala allahu calaa nabiyina maxamedin waaalihi wasaxbi wasalam